markii loo jawaabayna afarta murjay ka qayliye ninka jaamac baadi la yiraahdo ugu marka jaamac baadi baan u naqaanay garaad oran mayne oo magaca cusub buu yeeshay kana gooy maayo magacaas waharsamo waxaan leeyahay shaabad baa ku dhacday nin maanta boqor cusub sameeysta boqor buurmado af iyo musaamax u fidi wuu galabsaday wuu mutaystay wixii hore uu ku hadlayay waxaan dambe qarannimada uu soo jeestay baa ayaa ka maydhay haddii dadku guul helo oo ilaahay guul basiyay cid dagaalamaan dee inuu ama ku faano ama la fadhiyaabay hayde inuu cayun miciinsado may hayn nin annaga ahoo qolo annaga isla annaga ahoo habar yoonisa geel ka soo qaaday oo idaar la odhan jiray ayaa geel soo qaaday ayadoon cidiba hadalayn ayuubu geel hortiisa subax la fadhiistay gabay wuxuu qulubay habar yoonisa inta gaajal la qaaday kuruurkan qubnaadhe xereedooda qutaariye hayb qoyar weey olbaa lagu soo qaaday hal lagama tagin wuu calaalay wax la idaaro malagaagal miidaan ka dhaqdhaqsi halkan waxaan ku qabanayaa maanta shirka jiraayid oo ah jawaab bar dhaweyto uu bixiyay boqor buurmadow oo bariyaha miidiyaha ku wareegaysay ninba si uga jawaabayay asagoo u jawaabay nin in badan ku soo celceliyay cayda reerka oo cid tiraa ka daa iyo cid kula yaabta midna aan arag ayaa kelmadii u jawaabay miidiyaha saa wareegaysa ma arag mar qura ninkaasi intuu hadlayay ama uu ceebtaa iyo caydaa ku hadlayay cid qura oo hartiya ama daaroodba ah oo kula yaabta oo ka xaal bixisa oo tiraa waxaan cid ma qabtaan ummadda dhan ee aad waxaan ku leedahay kelmadii jawaabta ahayd ee qurahayd ayaa afarta qaaradoodba laga soo qaatay lama yaabin kuwa maanta ama harti ama daaroodee sida qaldan u turjubaya lama yaabin waxaan la yaabay kuwa isaaqa ah ee wax alaala waxay ku hadlayaan iyo waxay ka xaal bixinayaan iyo waxay buurmadow ku canaanayaan midna aanan garanayn nin maalin dhaweyta hadlaya oo yidhi garaad baan ahay qoladiina jaamac siyaad iyo maxamuud siyaad hadduu idoo ammaanay oo bahar sama la caayay caayada dhulbahanta la caayay meel laydiga tegi mayso kelmaddaa nin lahaa baan doonayaa laba midh inaan idhaaho had iyo gooraalo qoradan harti ama dhulbahantay markay saaqa la hadalayo garxajis bay si gaara carabka ugu soo dhuftaa waa dee garxajis waa isaaq garxajis waa isaaq habar jeclana waa isaaq habar jeclo derbiga isaaq weeye ee ka difaaca wax allaala wax ceeba ku timaada ama waxa qaladkee lagaga hadlayo waa cidda ugu ficil kulul ee isaaqa ka difaacda ilaa iyo salaan carabi gujiskii baddaan uga dhigahay gabiga daarood in isaaqa qaydii batay ayaan gaarka ka hayaay buur haddaanu isaaq aanu la walaalahayn habar jeclo wuxuu noqon lahaa goblan habar jeclo waa reerka noogu ficil kulul waa reerka wax xun ka dhidhida afayeen buu u yahay isaaq aan kuu sheegay afka isaaqna wuu ku hadlayaa wuu ku hadli karaa kow wuxuu ka hadlayay ninkaasi ku soo celceliyey harti dhexdiisa wuu ka caytamay majeerteen dhexdiisana wuu ka caytamay waa loo sacabtumay annaga qorshaha iyagu waxa weeye qofku hadduu meel cid kaga dhaco ama qaran kaga dhaco ka ku xiga ayaa ka xaal bixiya waxaanu eegayna bal inay kula yaabaan nin quro kula yaabay nin ku gacan siiya mooye maana arag markii loo jawaab waxa la yidhi qaniya kaa fujisa markii loo jawaabayna afarta murjay ka qayliye ninka jaamac baadi la yiraahdo ugu marka jaamac baadi baan u naqaanay garaad oran mayne oo magaca cusub buu yeeshay kana gooy maayo magacaas waharsamo waxaan leeyahay shaabad baa ku dhacday nin maanta boqor cusub sameeysta kani boqornimadii wuu ka baxay
shaabadaasi mid ka go'aysan maaha midhiyahay ku jirtaa waa la iska dhaxlayaa oo ma jirto wey ilmo garaad cabdiqani halkaasaa asalka ee taa calama saaran leh ninkani wuu saqiiray shaabad baana ku dhacday waxa weeye waa jaamac baadigaasu looga soo dhaqaaqma waa jaamac baadi waxaan leeyahay haddii dadku guul helo oo ilaahay guulba siiyey cid dagaalamaan dee inuu ama ku faano ama la fadhiyaabay hayde inuu cayuun miciinsado may hayn nin annaga ahoo qolo annaga isla annaga ahoo habar yoonisa geel ka soo qaaday oo idaar la odhan jiray ayaa geel soo qaaday ayadoon cidiba hadalhaynin ayuubu geela hortiisa subax la fadhiistay gabay wuxuu qulubay habar yoonis intaad gaajo la qaaday kuruurkan qubnaadhe xereedeedu qutaariye habar qoyare weey col baa lagu soo qaaday hal lagama tegin wuu calacalay waxa la idaaro malagaagal miidaan ka dhaqdhaqsi bal maxaa ka maqnaa ka madaarinayay muhashi Soomaal bal waxaan jaamac baadi ka madaarinaya muu libtiisaba haysto aydan muu iska daayo waa taa idaaru maru marinayaayo calaalkiisa dambayn yaan maray hadda libta la jiif weydo oo afxumo iyo ay iyo qodis nabarkii aad ku guuleysatay haddii aad dabaqdo khatarteeda leedahay waxaan leeyahay kuwa isaaq meel walba ka hadlaya ama dabada noqoto ama meel kasta ha noqotay waar isla yaabo oo beesha dhan ee daarood ee harti ee ku gacan siinaysa aydiini arka waxaan leeyahay waa jawaab asal ah taasaan ku taageersanay afka isaaqna uu ku hadli karaa asaga ka afayeena waa difaaca nin saaq qodobtii burtaan gaarka ka hayay wiilsana carab ilaa salaan carab tanaha marjaa waa darbiga isaaq ee ka difaaca ceebta iyo caydaba u diyaarka mid kalena waxaan leeyahay madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne boqor buur madow afi iyo musaamax u fidi wuu galabsaday wuu mutaystay wixii hore uu ku hadlayay waxaan dambe ee qarannimada uu soo jeestay baa ayaa ka maydhay madaxweynahana taasaan kula talinayaa boqor madow waxaan leeyahay boqor buur madow waan kugu garab taaganay jibkiisaad marisay aad iyo aad baan kugu hambalyeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu